مالها أنا نقطة ده واحد عنده واركان وجوبشو كان نقطة حلي قاعد وقدم بيه هذا أنا واحد شفته الدنيا لقاها لي قف كمبيوتر بلقاها لي شركة وحيسية HP ذن أما أي كمية هاي وكله قف كستو الدنيا كنا أول وينو كمبيوتر هلا مركل لفتر كيجا ويقعد كيدو waxaan xasuustaa deenkasto xilli dambe ahayd xilligaa ka horreeyay oon kombiyuutarka dhigan jirnay muqdisho magaalada muqdisho macad la odhan jiray siidam sanad dhan baanu dhiganayna kombiyuutar la baranayay kombiyuutarna maanaan arag gebigiisaba xataa muuqaalkiisa maanaan arag hal xaboo yarba xafiis oo la jiro sheedaan ku arki jirnay waxaa laga sheekaynayaa halkuu ka soo bilaabmay taariikhdiisa sayniskiisa wuxuu ahaa aduu nasiib wanaag markii ugu dambeysay baanu fursad u helay oo la helay sanadkii ugu dambeeyey laakiin qof iyo kombiyuutar baa la helayaa wax suuragal ma ahayn aqoontaas aqoon runtii naga timid maaha laakiin dunida ka timid dunida waxay ogaadeen in qofka gacanta lagu dhigi karo oo waxtarkiisana looga faa'iideysan karo marka wax akhriya wax la baro khasab qof kasta wax lagu barayaa tiyo markaa sidaa tahay haddana waxa barbar socdaa adigoo aqoontii oo dhan baranaya oo akhriyaya haddana bal afkaaga inaad eegto afkaagu waxa weeye waa baadi socdii ummadda aad kaga soocaysay waxaana la yidhi kolba inta erey aad taqaano ayaad fikirtaa oo fikirkaagii baa ku xidhan luqadaadii luqadihii kale waa inagu wada qabiyo inkasta aynu ka baranno haddaynu doonno waxaan xasuustaa xilliyadii hore luqadahan jeclaa inaan barto faransiis carabi talyaani ingiriisi waxaasan dhigan jiri xilligii dambe amxaarig baa kusoo biiray mar dambe xogaa swidisha kusoo biiray mar dambe xogaa sawaaxiliha kusoo biiray intii oo dhan bay igu dhex googo'an yihiinoo midna waxba kama aqaano mid walba in yar kan ku hadal baan is odhanayaa oo ku kala soo boodaya in yar swidisha ku hadal baan is odhanayaa oo eri maxaariga soo boodayo basaan qofka maxaad kula hadashay mid talyaaniga soo boodaya macnaha wax mushkiladaas markay noocaa tahay dee maxaan ku fikir luqadee baan ku fikiraa markaa fikirkaagii wuu kordhinayaa luqadaadina wuu xoogeynaya waxyaabaha xoojinaya waxaa ka mid ah in luqadda lagu ilaaliyo mahmaahyaha ka mid ah gogaalaysigaa ka mid ah carab jalqinta waxyaabaha la ydhaabaa ka mid ah waxyaabahaasi waxay dhisaan oo hayaan waa archives kaydiya luqadda weeyaan waxaa caqabado kulley hortaagan ama dhibaatooyin hortaagan in wax la akhriyaa way jiraan marka gurigaaga haddii buug laga waayo ama kitaab laga waayo halkiisii maxaa oolaya buuggaas maanta hadduu yaallo gurigaaga yaallo oo anad akhrina ishaada un ku dhacdo waxbuu ku dhalinaya maskaxdaada ishaadun hadday ku dhacdo haddii aad guri booqato oo halkan ay bugaag miidhan buuxdo iyo haddii bilaalayaasha la sheegaya buuxaan koobaba ay ka buuxaan mayda bal dareenkaagu ka warran bal guri noocaad booqatay dareenkaaga ka warran maxaad arkaysaa intee leeg baad daawan kartaa buugga waa laga yaaba inaad intaad soo qaado inaad kala bixiso oo rogrogto way dhici kartaa ha laakiin koobka intaad soo qaado saa u daadaawato waxaa laga yaabaa inaanay dhicin taas markay taa tahay akhriskiibaa barbar socda runtii waxyaabaha dadka caqabadaha ku noqon karaya waxaa ka mid ah iminka waxbaa la qoraa runtii dee dhib badan baa ina haysto ma lihiin maanta buuggaas waxaa laga yaaba bugaagta halkaa yaalo o dhan in qoraalkiisa mid walba qalad laga helo ugu yaraan xagga higaada ah waxaa loo baahnaa maanta in aynu internetka iyo qaamuusyo ay jiraan lagu eegayo oo cilmigan xaaji cumar oo kale uu ka hadlaya ka mid ah qalaadka wuu jiraa qoraalkii bay noqotay websaytyadii mareegahaynu akhrina inta badan internetka way fiicantahay in la akhriyo mar walba waxa laakiin marar badan waxyaabo badan oo qofkii akhriskii yara diidaya ayaa ka hor imanaya qoraal waxaa laga yaabaa 3 bog inaad akhrido 3 page oo aan hal joogsiyi ku jirin inaad aragta laga yaabaa boring macnaha in ku niyad jabto nin ka mid ahaa qolyaha novelada buugta sheekooyinka qora ayaa wuxuu ka warramaya waxaa jiray wargeys yar oo loodhan jiray Reader's Digest si kooban baa loo qori jiray markaa nin qora ahay oo buugta novelada qori jiray wuxuu ka hadlayaa berigii ugu horreysay buu maqaal u geeyey in lagu soo qoro baalka wargeyska lagu soo qoro markaa waad mahadsantii waan ku dheereeyay gaar ahaan lahaada wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca caruurta
dhinaca carruurta waa carruurta horta dhaqankeennii way maaragtay aad iyo aad bay ula yihiin marka xagga bugaagta iyo qorista la eego run ahaantii waxa weeye bugaagtan la qoray waxay u badan yihiin dadka waaweyn iyo ururin iminka bugaagtii ilaa hadda la qoray waxay u badan yihiin ururin iyo dadka waaweyn gabayadii iyo sugaantii laakiin dhallaanka yaryar oo marka laga bilaabo ilaa marka uurka uu ka soo baxay ee uu dhasho ilaa marka uu gaadhayo 18 jir maaragtay uu gaadhayo wuxuu u baahan yahay sugaan kala duwan iyo sheekooyin kala duwan iyo sheekooyinka xariirooyin marka buwaagan iminka anigu aan ku maaragtay labada goor ka soo saaray buwaagta oo kan iminka u dambeeya la idhaahdo naylihii dayle iyo dayl waxay ku socdaan carruurta yaryar abaabintooda iyadoo loo sheeko xariiro loo sheegayo ayaa haddana lagu edbinayaa oo maaragtay waxyaaba badan la tusayaa oo dhaqankeennii hadday yihiin waxyaabaha fiican waxyaabaha aan maaragtay carruurta laga ilaalinayo markaa sheekadan iminka halkan ku taallaa waxay ku saabsan tahay 2 nayloo yaryar marka 2daa nayl yaryar waa 2 nayl oo la degan hooyooyinkood oo ido khaliya ah oo aanu wan ku jirin marka 2daa nayl yaryar waa saaxiib run ahaantii aad iyo aad bay saaxiib u yihiin markay aad u saaxiib yihiin wax walbana way ka sheekaystaan marka had iyo jeer marka harada la tegayo biyaha la soo geynayo ceelka la geynayo had iyo jeer waxay raacaan hooyooyinkood markay hooyooyinkood raacaan ayaa haddana haradii ay guriga ku soo noqdaan keligood ma baxaan weligood yaalood waxaa kaxeeya hooyooyinkood marka maalmaha ka mida ayaa laga soocay baraarkii laga soocay idihii waaweynaa laga soocay oo keligood soo hadheen markaa haraad baa qabtay marka inankan la idhaahdo dayl oo isagu wiilah ayaa fikradu soo jeeday wuxuu idhi dayloy ma soo cabnaayo haradii biyaha halkii hooyooyinkayna geen jireen ma tagnaa dayla markaa waxay ku odhanaysaa meeshiina way fogeydo kaymo badan baa la sii marayey aniguna run ahaantii hooyada hadalkeedii baan dhegaysanayaa oo waxay hooyada igu tiri hooyo guriga ha ka fogaanin meeshan waa khatar dayl wuxuu ku adkaystay oo ku yidhi haddii aynu maaragtay aynu tagno cidinaynuma ogaanayso markaynu soo noqnona cidinuma ogaanayso labadeennuba intaynu tagno maynu soo cabbaynaa adna cid haynoo sheeganana cidinooma sheegayo way diiday daylo isagiiba markaa ay noqotay inuu iska baxo markaa uu iska baxay keligiis bay macasalaamsa waxay tiri nasiib wanaagsan wiilkii dayl waxaa nasiib wanaag iyo nasiib xumo mid ay noqotayba wuxuu gaadhay haradii haradii wuu gaadhay laakiin nasiib wanaag iyo nasiib darro mid ay tahayba wuxuu ugu tegey wax aan weliga argo qurux badan oo xayawaanahoo barabaralahoo cajiiba buu arkay oo dhaldhalaalaya markaa wuxuu yidhi wani waxaan waaba wax fiicana baladla hadashido dee biyahana xaggan ha kuu banneeyo markaa bahalkii shabeelka ahaa buu la hadla wuxuu yidhi waaryaha shabeel haradaan ka cabbay ii bannee shabeel wuxuu yidhi waa bal horta biyaha joogtee gugii hore maxaad ii caayi jirtay yaa naylka yar waa daacadoo wuxuu ku yidhi wallaahi gugii hore anigu mabaan dhalan oo weli 8 bilood meelahaas baan marayaa maba ii buuxsamin sanadkii ima buuxsamin shabeelkii muu qaadan taase wuxuu ku yidhi haddaa wixii caayi jiray ma aabbahaa buu hatalow markaa wuxuu yidhi waniyow anigu meeshaan ku noolahay waxa ku nool ida keliya oo hooyooyin baan la noolahay aabbahay aad sheegaysaba garan maayo wuxuu yidhi haddaa malaa wuxuu ahaa adeerkaa kii caayi jira gugii hore wuxuu yidhi adeernana lama joogo waxaannu ku noolahayba meesha waa ida khaliya markaasuu yidhi waa dhegaysow yarkow aniga dembi baa layga galay ama adeerkaaba iga galay ama ada iga galay ama aabbahaaba iga galay ama mid ree xigtadaadaaba iga galay aniga dembigii layga galayna maanta adaan kuu haya adumaan kaa jaraya xikmad badan baa ku duugan carruurta waxa loo sheegayaba waan idin soo noqon doonnaa sheekadii horta haddii yar wado dayliya way ismari waayeen dayl iyo shabeelkii wuu qanci waayey inankii yaraa dayl wuxuu damcay inuu qanciyo wuxuu anigu weliga wax ma caayin weliga wax mabaan caayin weligay wax ma caayin weliga cid ku caayda garan maayo war anigu niyo 8 bilood baan jira 8 biloodna weli sanadii ma buuxsamay sanadkii hore lagu caayay adiga soo maaha sanadkii hore may wuxuu yidhi iska dhaaf waxaas aniga waa la caayay wuu ku soo booday dayla naf weeyaan wuu la cararayo markaa dee orod buu mar haddii naftu lagugu yimaado waad cararaysaa waad dheeraynaysaa shabeelle cunadiisii buu roorayaa waa la baacsaday waa la siryaday
nasiib wanaag waxaa lagu soo baxay maroodi weyn oo meel maraya maroodigii buu dabada kaga gabaday waxaan malaynaa arkaysaan maroodigii baa yidhi waar ninkan shabeelkii buu weydiiyey wuxuu waar maxaad naylkan yar u baacsanaysaa ood u eryanaysaa wuxuu yidhi niyow sanadkii hore ayaa isaga aabbihii adeerkii mid kaloo xigtadiisa ka mid ah aniga ma kala garanaya ayuunbaa icaayay markaa maroodigii wuu garnaqo wuxuu ku yidhi waa niyow mar haddaanu ninkanu sanadkiiba buuxsamano 8 bilood qudhow yahay dee ma ku caayinaya isagu mar haddaanu ku caayin wixii kale ku caayay dee adigu raadso oo dembigan isagu ma gelina dee ka daa dembiga isagu ma lehe maroodigii shabeelkii wuu qanci waayey wuu diiday gartii buu qaadan waayey maroodigii wuu qaaday kor buu qaaday dhulkuu ku dhuftay weliba wuu eryado in muddo dheera buu eryanayey meel fog buu gaadhsiiyey kabacdi uu ka soo noqdo naylkiibuu ku soo noqday naylkii wuxuu u kaxeeyey haradii biyaha uu doonayey labadoodiiba biyii bay ka wada cabbeen way ka dhargeen alxamdulilaah markii ay ka dhargeen ayuu maroodigii wuxuu ku yidhi wareerdhe dhegayso reerkiinnii baan ku geynayaa maalin dambena horta meel gurigiinna ka fog ha tegin cid aanad garanayninna weligaa ha la hadlen abdkaa cid aanad garanaynin ha la hadlen xigmadahaan doonaya ina carruurta lagu ababiyo ay ka mid tahay meelaan gurigiinna hana ka fogaanin hooyada amarkeeda ha diidin meel khatara ha ismarinin naftaada biima ha gelinin adigu saaxiibadii daylo wuu u sheegay warkii wixii dhacay daylaya iyadii wada socdaana waxay u sheegeen labadoodii hooyo shil waxaa dhacay meeshaasaan tagayo caynkaasoo meeshaas maroodi baa khatar baa lay geliyo wallaahi oday maroodiya haddaanu ii bixi lahayn waaba maaragtay waa lay cuni lahaa maanta adigu markaa daylo aad iyo aad baa loo ammaanay ninkii daylo xoog baa loo canaantay waa laga dhaadhiciyey waxaa la yidhi markaad wax u baahan tahay anigana weydii wixii kastee qurux badan inaad meel ku aragto ha moodin inay fiican yihiin iska ilaali wax kastood aragto cusub annagana weydii war naga qaado markaa sidaasaa haradii waxaa loo ballan qaaday berrito maalinta laga idhahdana annagaa idin kaxaynayna haradii baanu idin geynaynaa wixii aad u baahantihin o dhan baanu idin samaynaynaa markaa xigmaddan anigu doonay inuu gudbiyo carruurta waxay tahay in carruurtu ay la hadlaan waalidkoodu aanay ka baqanin oo wixii ay baahan yihiin intay xadi lahaayeen ama ay qabsan lahaayeen ama ay dhici lahaayeen ay waalidkooda weydiiyaan naftooda inaanay khatar gelinin inay waalidku waxaan doonaya u akhriyaan habeenkii markay seexinayaan carruurta inay uga sheekeeyaan wax kastoo qurux badan inaanu fiicnayn inay uga sheekeeyaan naftooda inaanay khatar gelin inay uga sheekeeyaan qofka akhriyaya ee weeyaalkeena waxaan u sheegayaa dembi uu qof galay qof kale inaan aano iyo ma garanaysaa aarsi aan lagu waxyeelaynin waa sheeko dahsoon oo qofka weyna si u gelaysa qofka yarna lagu ababinayo inuu waxyaabo badan iska ilaaliyo oo adiga iyo ilmahaagii markaad u sheekanaysa habeenkii uu seexanayo aad sii dhunkanayso aad leedahay seexa aabbo hooyo aad leedahay aabbo miyaad guriga ka fogaan doontaa miyaad meel aanad garanayn mari doontaa doodii hadalkii baad ku baraysaa macnihii waad u akhriyaysaa hadhow wuxuu ka dhayahay seexi hooyo oo iigu akhri sheekadii ma seexana ilaa aad u akhrido marka anigu buuggan waa buuggii labaad oo aan ka sheeganay xayawaankii soomaaliga aynu ku naqaanay oo carruurta ay u matelayaan sidaa maroodigu yeela waxay u baahan tahay dayasho haddaad aragto qof dulmanoo meel lagu dulmayo ama ha yaraada ama ha weynaadee oo la yasayo ama wax loo geysanayo oo xitaa haddii aad aragto laba soomaaliyo meel isku dilaya aad u kala garqaado kii gartale aad gartiisa siiso markaa anigu sheekooyinkan carruurta waan wadayaa insha allahna waxaan doonayaa ina dhinaca carruurta loo badiyo sheekooyinka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu suuraddaan tugsanayo